kadib markii dabayaaqadii bishii ina dhaaftay madaxweyne Donald Trump uu xilka xayuubin ku sameeyay haweeneydii haysatay hay-adda Homeland Security ee amniga gudaha isla markaasina ICE ay hoos imaanaysay Christian Neom ayaa waxa uu magacaabay kadib Mark Wayne Mullin oo isagu ah nin si weyn aragti ahaan ay isugu dhow yihiin madaxweyne Donald Trump qabo aragtida sida weyn uga soo horjeeda soo galootiga iyo dadka qaxootiga ah haddaba ninkaasi ayaa inkastoo si rasmiya hay-adda ilaa iyo haatan uusan ugu soo shaqogelin sababo la xiriira hay-adoon qayb ahaan shaqaynaynin dhaqaale yarida haysata awgeed ayaa haatan marka si rasmiya u shaqo bilowdo waxaa wararka ugu horeeya haatan soo baxaya ay sheegayaan in uu jiri doono mar kaleeto duufaan ka dhan ah Soomaalida gobolka Minnesota isaga oo sheegay in uu baaritaano ku sameyn doono dadyoogii wax isdabamarinta iyo xatooyada sameeyay iyo shakhsiyaad gaar ah oo ay ku jirto Congress Ilhaan Cumar kuwaasi oo hay-addu si gaar ah ay muddaba u daba socotay haddaba khataraha ka imaan kara ninkani maxay yihiin waxa uu isagu ku fakarayay sidee tahay amaba ay uga soo horjeedaa arrinta Soomaalida Xuseen Jaamac oo ah suxufi ku sugan gobolka Ohio ayaa haddaba arrintaasi il gaara ku hayay maalmihii ugu dambeeyay Xuseen bal ugu horreyntii waxaad nooga warantaa ninkan madaxweyne Donald Trump uu hay-adan u magacaabay waa qof noocee ah Sara waad mahadsan tahay waana salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku xiran inta haddii aan ka soo gudbo Mark Wayne waa 48 sano jir cadaan ah isla markaana ka soo jeeda gobolka Oklahoma magaalada caasimadda u ah ee Oklahoma City waa nin ka mid ah shakhsiyaadka ku sumtan nacaybka waliba markaynu ka hadlayno dhanka Soomaalida Muslimka iyo soo galootiga wuxuu ninkani u muuqdaa markii la fiiriyo wararkii hadda ugu dambeeyay ee soo baxaya waxyaalaha ay warbaahintu ay ka qorayaan iyo sida loo fasirayo markii ay falanqeeyaasha iyo dadka arrimaha siyaasadda u dhuunduleela ay ka hadlayaan inuu noqon doono nin ka sii xag jirsan Christian Neom isla markaasna doonaya inuu qaado olo ka dhan ah Soomaalida iyo dadka soo galootiga taariikhiyan ninkaanu ma ahan nin ku cusub arrimaha siyaasadda markii si horena wuxuu ka soo bilaabay inuu noqdo xildhibaan golaha deegaanka ah hadda markii la magacaabayna wuxuu ahaa senator ka tirsan Congress-ka Mareykanka laakiin markii loo magacaabay secretary-ga Homeland Security-ga ayuu iska casilay xilkii maxaa la yiraahdaa Congress-nimada ahaa maadaama Mareykanku aysan ahayn sida Soomaaliya oo kale oo qofku marna uu xildhibaan noqon karayo wasiirna uu noqon karayo oo ay qasab tahay in qofka uu ka dago xildhibaannimada haddii loo magacaabo golo wasiir marka xilkiibu ayuu ka degay Congress-nimada ahaa wuxuuna hadda yahay madaxa ugu sarreeya ama secretary-ga Homeland Security-ga marka waxaan isleeyahay Mark Wayne inahaas ayaynu ku koobi karnaa qofka uu yahay siyaasiyan iyo aragti ahaan madaxweyne Donald Trump ayuu ku dhow yahay ayaa la leeyahay warbaahinta qaar badan oo kamida ayaa waxa ay wax ka qorayaan xataa in uu ka hadlay Soomaalida gobolka Minnesota iyo Ilhaan Cumar maxay yihiin waxyaabaha ilaa iyo haatan uu sheegayo Sahra waad mahadsan tahay ninkan xogaa hadda ka soo baxaya iyo statementyada kala duwan ee ka soo baxaya marka la fiiriyo dhowr shay oo la yaab leh ayuu sheegay waana arrimo muujinaya in duulaankii Soomaalida lagu hayay muddooyinkii hadda la soo dhaafay marka dib loo soo celin doono lana keenay shakhsi ka xag jirsan haweeneydii hay-addan hogaaminaysay wuxuuna ninkan isku arkaa inuu yahay nin fulin karaya wixii ay fulin weeday Christian Neom waxyaalaha uu sheegay qodobka ugu horeeya wuxuu sheegay inuu sixi doono maxaa la yiraahdaa dhibaatada ay Soomaalida Minnesota ku hayso dalka Mareykanka waa sida uu hadalka u dhigay waxaan saxayaa buu yiri Soomaalida dhibaatada ay ku hayso dalka Mareykanka qaasatan wuxuu xusay musuqmaasuq baahsan xatooye baahsan iyo arrimahaasi inuu markaasi uu sixi doono wuxuu marka labaadna ninkani uu sheegay inuu beegsan doono ilgaara ku hayn doono baaritaan ku samayn doono xildhibaanad Ilhaan Cumar wuxuuna sheegay in dad aad u tiro badan ay sponsor garaysay ilaa haddana dadkaasi aan la aqoonin oo ay ku dhaxlunsan yihiin gudaha dalka Mareykanka taasoo ah sheeko cusub oo aanan ba horay u maqal markii la fiiriyo waxyaalihii ay kooxaha cunsuriga ah ay ka sheekeyn jireen
iyo waxa hadda ninkaani uu soo saarayo ayaa waxay yihiin bakaafi kala dheeri ilaahan waxaa lagu eedeyn jiray inay walaalkeed guursatay ayaamihii dambe waxaa lagu soo daray in la yidhi lacag bay boobtay ilaa iyo 30 milyana hadda waxaa la leeyahay dad aad u tiro badan ayay sponsor garaysay oo mataqaanaa dadkaasna cid ay yihiin aan la aqoonin inkastoo sponsorka nooca uu yahay iyo sida uu sponsor garaysay aan details badan laga haynin muuqataa xog cusub oo markaasi ay kooxaha cunsuriga ah ay soo curinayaan waxaa jirta in hay-adda Homeland Security oo ahmiyad weyn u leh madaxweyne Donald Trump isla markaasina hay-adan ICE ay hoos imaanayso muddana loo xasuusto wixii ay ka sameysay gobolka Minnesota hadday noqoto dadyo la soo xirxiray hadday noqoto kuwa dabagal lagu hayay hadday noqoto ganacsato Soomaaliyeed oo ganacsigooda la wada xirxiray oo la fariisiyay hadday noqoto Homeland Security olole xoogan ayay ka wada gobolkaasi iyo gobolada kale Soomaaliyeed degan xataa Ohio ka mid ahayd hadda maxaa howlaheedii gaabiska ku keenay sahroy ilaa iyo bishii February sanadan horaantiisii ilaa iyo hadda dawladdu waxay ku jirtaa shutdown ama waxaa la xanimay budgetyadii ay dawladdu ay ku shaqeyn lahayd qaab waliba baashali ah kulligood lama wada xanimin laakiin qayb baa laga xanimay marka hay-adaha la xanimay budgetkooda ay Homeland Security-gu ay ka mid tahay waana sababta hadda loo arko in waxa la yiraahdaa ninkan hadda la magacaabay waxyaalaha uu shaqada u bilaabi laayahay waxa ugu weyn ay tahay dabcan uusan budget uusan haysanin hay-adan marka la doonayo in wixii ay samaysay wax la mid ah ay samayso dhaqaale xoog leh ayaa ku kacaya waxay haayarayaan askar aad u tiro badan waxay sameynayaan baabuurta iyo qalabka iyo waxaan oo dhan dhaqaale ayay ku soconayaan haddii marka aysan congressku approve garaynin budgetkii loogu talagalay hay-adan inay olahaas ay ku samayso hay-addu ma shaqayn karto marka hay-adda hadda lugta ayaa lagu dhegan yahay maxaa la yidhahdaa xisbiga democratka ayaana si weyn u diiday iyo qaar kale oo ka imaanaya xataa xagga republicanka ayaa diiday in hay-adan dhaqaale inta la siiyo ama loo approve garayo ay mar labaad ku duulaan magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka marka hadda aynu fiirno Minnesota wixii ka dhacay Chicago wixii ka dhacay LA wixii ka dhacay iyo magaalooyin kale oo waaweyn oo markaas ay degan yihiin dadka democratka ah marka hay-addu budget ma haysato ilaa iyo February dad badan oo hay-adan u shaqeynayay ayaan mushaarkoodii qaadanin marka hay-adda xataa aan mushaarka iska bixin karinin ma sameyn karto ololahan ninkan marka wuxuu sugayaa in hay-adda loo approve gareeyo budgetkeeda waxaan arkayay waraysi uu hadda dhowr maalmood ka hor uu bixiyay ayuu wuxuu ku sheegay in ay wadaan qorshe ah in 3 sano u hartay Donald Trump hal mar budgetkooda ee hal mar la approve gareeyo oo laga daayo budgetka sanadlaha loo sameynayo oo hal mar isdhaafiyo taasoo ka dhigan marka xilliga Donald Trump u haray oo dhan in hay-adan iyo saaxiibada Donald Trump ay sameeyaan wax walba oo ay sameyn karayaan waa tahay marka ilaa iyo haatan maadaama howlihii hay-adda ay hakad ku jiraan Minnesota xaalkeedu waa sidee maxaa soo kordhay ayaa la is oran karaa waxyaalaha soo kordhay waxaa ka mid ah in dabcan uu yimaaday nin maxaa la yiraahdaa cunsuri ah qorsheynaya inuu markaasi ka shaqeeyo qorshe loo arko inuu xataa ka sii culus yahay midkii ay Kristi Noem ay markaasi hoggaanka ay u ahayd marka dad badan oo kala duwan oo hadda arrimahan ka hadlayay maalmihii hadda la soo dhaafay ahna dadka u ololeeya siyaasadda dadkan liberaalka la yiraahdo ayaa intooda u badan waxay arkayaan inuu ninkan uu yahay musiibo cusub oo soo socota aadna markaasi way oga digayaan marka arrimaha ayaa soo kordhay waxaan u arkaa in ummaddu ay markaa aad iyo aad ay oga digtoonaato oo la fiiriyo lana socdo waxyaalaha ninkan iyo qorshaha cusub ee markaasi ka soo dhex guuxaya waa tahay maxaa si gaara marka Soomaalida mar walbaba cidi timaado ay u beegsanaysaa oo ku gaara ayaga haatan waa su'aal maxaa la yiraahdaa wanaagsan anigu dhowr jeer oo kala duwan baan arrintaasi aan waqti badan aan ku bixiyay waxaan is leeyahay Soomaalidu waa qoomiyad yar oo hadda soo koraysa markaynu ka hadlayno xagga dhaqaale ahaanta iyo population ahaanta iyo waliba xataa xagga siyaasad ahaanta muddooyinka hadda la soo dhaafay Soomaalidu aad ayay ugu soo biirayeen siyaasadda dalka Mareykanka markii la fiiriyo numberkooda iyo haddana sida ay dalka saameyn ugu leeyihiin ayaa aad iyo aad markaasi u kala fog marka waxaan u malaynayaa aragtida shakhsiga marka aan ku fiiriyo
in kooxahan cunsuriga ay doonayaan inay caburiyaan in hoos loo dhigo maxaa la yiraahdaa qowmiyadan qaxootiga ah ee markaas soo kobcaysa markii dhan walba laga fiiriyo taariikhiyana waa arrin soo jireen ah oo markii aad dib ugu laabato taariikhda dalkan saan oo kale dad badan baa lagu sameeyey dadkii talyaaniga ahaa baa lagu sameeyey qolooyin badan oo carab ah oo xilliya dhexe yimaaday baa lagu sameeyey ciddii la arko inay soo kobcayso madaxa looga istaagaa hoos baa la geeyaa si markaasi ay u noqdaan kuwo ku dhex milma maxaa la yidhahdaa 360 milyan ee Mareykanka ah inta badan sahroy haddii aad fiiriso waxaa la soo celceliyaa Soomaalidu ma ahan dad assimilationka ogol assimilationkana wuxuu u laabanayaa waa ku dhex milan inaynu ku dhex milanno dadkan tirada badan ee dalkan Mareykanka degan dhaqan ahaan iyo diin ahaan marka isku xirnaanshaha ay Soomaalidu isku xiran yihiin meel gaar ah ay degayaan codkooda ay midaynayaan dhaqankoodii iyo diintoodii ay haystaan dalkoodii ay sabood garanayaan waa cudud markaa ay dhibsanayaan kooxaha cunsuriga marka in la kala faraariyaa la rabaa middo meel laga tuuro si marka dadku haddii ay kala tagtagaan oo wixii ka dhaxeeyay meesha ay ka baxaan sida dhaqankii iyo diintii iyo midnimadii ummad waxay noqonaysaa ummad sidii cusbadii ama sokortii biyo lagu daadiyay oo ku dhex milantay bay noqonaysaa sidaasayna inta badan noqdaan qowmiyadaha dalkan yimaada marka aragtida ay la doonayaan waa aragtida nooca ah waa tahay marka ilaa iyo haatan maxay tahay waxyaabaha Soomaalida u furan ama ay ku dhaqaaqi karaan oo tala ahaan aad isleedahay ahmiyad ay u leedahay waxaan isleeyahay waxyaalaha hadda aan u baahanahay inaan ka sii baaraan degno oo muhiimka ah ayaantii dhaweyto colaadu ay socotana dad badanna way ka sharqamiyeen Soomaalidu waxay u baahan tahay horta marka ugu horeysa inaynu fahanno dalkan aan deganahay wixii dalkii aan uga soo tagnay oo aynu ku kala tagsanayn waa one thing laakiin Soomaalida dalkan degan waxay u baahan tahay as a whole horta inay leeyihiin guddiyo dhexe inay leeyihiin maxaa la yiraahdaa hay-ado Soomaalida u ololeyn karaya arrimaheeda midka jooga Mareykanka qaybta ugu shaysa westiga iyo kan eastiga jooga hay-ado Soomaaliyeed oo Soomaalida u ololeyn karaya in la helo waa muhiim inaynu helno maxaa la yiraahdaa qaab aynu dacwado ugu furi karno oo looyaro aynu isticmaalin karno oo xataa xildhibaanada deegaanada anagu aynu deganahay ka soo baxa aynu kula xisaabtami karno oo dhibaatooyinka la doonayo in Soomaalida lagu sameeyaa waa inaynu qaab noocaaya aynu isku diyaarinaa dadka dhulkan degana in badan oo kamid ah sidaas ay u diyaarsan yihiin hadday yihiin hindida hadday yihiin qolooyinka kale ayaguna soo galootiga marka Soomaalida waxaa ka maqan isku xirnaantii waxaa ka maqan inay ka sii fakiraan sidaynu meeshan ugu noolaan karnaa haddii lagu soo duulo sidaynu isku difaaci karnaa dhaqaale ahaan iyo sharci ahaan nidaamyada noocaas ah Soomaalida ka maqan waana waxyaalaha hadda loo baahan yahay baan isleeyahay inay Soomaalidu ku baraarugaan inta aysan mar labaad soo laabanin duufaantii dhawaan dhacday oo kale dad badan ayagoo sharciyada heesto ayay baqayaan qaar badan oo dadkii ganacsatada ah ayaa banaanka imaan waayay shaqaysan waayay aniga mar raba ayuu qof walba leeyahay dhibaato inaan la kulmo maadaama waxaan ay tahay wax si guud qofka Soomaali ahaan markii loo gartaba la qabanayo marka dadkaasi ayaga ah maxaa la gudboon sida gaarka cabsida ay u hayso oo qaarkood ama deganaanshiyaha rasmiga haysto amaba xataa dhalashooyinka waddanka Mareykanka qaatay arrintaanay soo hosgalaysaa sahray markii la fiiriyo waayo dadku waxaa cabsida ka saari karaya dadkooda kale ee aqoonta leh dadkooda kale ee xilalka haya iyo in dadkooda ay isticmaalaan awoodda ay leeyihiin oo dadka deegaanadooda ka soo baxo ajaanibta ee caddaanka iyo madowga leh in markaasi aynu ka dhex hadli karno oo codkanaga ay ku hadli karayaan runtii meesha keliya hadda aan ogahay in dhaqdhaqaaq fiican laga samayn karayo Soomaalidana hormuud ku ah waa Minnesota iyo Ohio waa in marka meelahaasi ay ka soo baxaan jaaliyadaha oo guddiyo cusub iyo dad dhalinyaro ah oo dhig cusub ay soo baxaan isla markaasna ayagu xataa samayn karayaan wacyigelin dadka noocaaya loo sameeyo in dadka noocaaya lala hadlo in loo ballamiyo qareeno maxaa la yiraahdaa su'aalaha ka dhex guuxaya uga jawaaba in haddii la qabsado hotlines iyo telefono ay wici karayaan la helo oo la yiraahdo telefonadan soo waca waxaa dhan waxay u laabanaysaa markii la isku celceliyo mushaakilaadka ayna haysta waa midnimo la'aan weeye dadku halkan waa degan yihiin dhaqaale waa ku leeyihiin sharciye waa ku leeyihiin laakiin qalbigoodii dalkii buu jiraa qofka Soomaaliga ahna ee halkan deganna indhaha uu qofka kale Soomaaliga uu ku fiirinayaa waa wax Soomaaliya yaala laakiin waxaan isleeyahay dadka halkan degan waa inay isku fiiriyaan indhaha
xaaladda halkan taala si markaa loo soo celiyo dadka midnimadooda. kaasi waxa uu ahaa suxufiga Xuseen Jaamac oo degan gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka si toos ah khadka araga ee TV-geena ayuu noogu waramayay Somali Coverage TV. Xuseen aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa in falanqaynta arrintan ku saleysan khataraha Soomaalida ku soo fool leh ee ku saleysan ninkan dhawaantan madaxweyne Donald Trump uu magacaabay in uu noqdo madaxa hay'adda Homeland Security amniga gudaha dalka Mareykanka. Inteenu waraysigan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo.